soo dhawaada barnaamijkan caawa oo ay noo daadihinayso xitig TV. barnaamijka caawa waxaa inoogu marti ah Dr. Bashir oo aan ka wareysan doono akhbaarta caabuqa 19aad iyo talaalada. walaal Bashir kusoo dhawow caawa barnaamijka. waa mahadsantahay Faadumo Maxamed adiga iyo dhammaan akhyaarta xidig TV. aad baan kaga mahadnaqayaa aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa khadka idinkula jiro waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa maamulka iyo dhammaan wariyaasha xidig TV hawsha ay u hayaan community-ga. aad baad u mahadsan tahay Bashir. su-aasha ugu horeysa oo dadweynaha Soomaaliyeed ee magaaladan St. Cloud aan deganahay gobolka Minnesota ay jeclaan lahaayeen inaan maxaa la yiraahdaa ka haqabtirna waxaa kamid ah maxaad inooga sheegi kartaa maxaa la yiraahdaa sida loo diyaariyay talaalkan lagula dagaalamayo caabuqa 19aad. saa ogsoonnahay talaalka waxa uu soo maray phase badan wuxuu soo maray study fara badan phase 1 phase 2 phase 3 markii ugu horeysay talaalka la sameeyay waxaa lagu tijaabiyey dad maxaan ku sheegaa volunteer ah oo caafimaad qabo oo xoog leh kadibna numberkii waa la badiyay phase-kii labaad phase-kii saddexaad dadka dhan loo bandhigay ilaa kumaan qof ugu yaraan waxaa intaan dadka loo soo fasixin talaalka waxaa la siiyey in ka badan 30,000 qof marka safety-gii talaalka waa la soo darsay labada talaalo hadda la ansixiyey oo FDA-da oo waaxda maxaan ku sheegaa daawooyinka iyo Mareykanka ay ansixiyeen waa Pfizer iyo Moderna labadaba waxay ka samaysan yihiin mRNA vaccine waaye si fiican baa loo soo darsay waxaa ogsoonnahay waxa ku tarkoodu inuu ka badan yahay 95%. macnaha 100 qof haddii la siiyo 95 qof oo 100kaas ka mid ah wuxuu ka difaacayaa inuu cudurkii uu ku dhaco marka waa number aad u weyn oo waxtar ah marka haddana waxa waaye in ka badan maxaan ku sheegaa dad badan oo ama dhakhaatiir ha noqdaan ama ha noqdaan dad siyaasiyiin ha noqdaan ama dad public health ha noqdaan oo talaalka qaatay way jiraan marka marxaladahaas soo maray talaalka markii hore. aad iyo aad u mahadsan tahay Dr. Bashir. maxay tahay dhibaatooyinka ay dadka kala kulmi karaan side effect-ga waxaan u naqaano talaalkan? wax walba daawo walba wax kastoo la sameeyo waxay leedahay side effect so waxay leedahay wax ku tar wax ku oo sababta loo sameeyay ay tahay talaalkana waa qayb ka mid ah kuwaas markii la darsayay kooda hore oo la fiirinayay oo faa'iidadiisa la ogaanayay at the same time dadkii lagu tijaabiyay kooda hore oo volunteer-ka ahaa waxaa la ogaaday dhibaatada uu geysan karo dhibaatooyinka uu geysanayo waa waxyaabaha waxa ka mid ah kuwa local ah oo qofkii markii lagu duro meeshii laga yaabo meeshii inay xanuunto yara gududato soo yara bararto iyo kuwo jirka dhan wada saameynayo oo qofkii inuu qandho yeesho kale hergab wax u eg inuu yeesho inuu daal badan yeesho laakiin waqti ma sii jirayaan waxaa laga yaabaa maalin iyo 2 maalin inay joogto ay ahaadaan dadkoo idinla kuma wada dhacdo dadka qaar bay ku dhacdaa saas oo kale laakiin faa'iidada marka loo fiiriyo uu leeyahay oo ah inuu bini aadanka ama jirkan uu ka difaacayo 95 iyo marka loo eego waxyaabahan yaryar oo hadda aan sheegayno oo hadda aan sheegnay marka faa'iidada ayaa aad uga fara badan marka sababta la ansixinay waxay saas waxaan ogsoonnahay waaxda oo FDA-da ama CDC-da oo kale markay darsayeen inaysan u soo fasixi lahayn dadka haddii wax tarkiisa uusan badnayn haddii dhibaatada uu geysanayo ay aad u fara badan tahay lama soo fasixi lahayn marka at the same time marka dadka la siiyo waa la daba socdaa waa la controlaa qof walba oo qaata talaalka waxaa la siiyaa number waxaa la siiyaa car oo kula socon karo uu ku gudbin karo uu warbixintii dib u celin karo ama CDC-da ama FDA-da uu gudbin karo marka ilaa hadda dadkii qaatay oo tiradoodu ay marba sii kordhayso oo kor u sii socoto waxa waaye faa'iidada uu keenayo ayaa ka badan dhibaatadaas aan sheegnay. aad iyo aad u mahadsan tahay Dr. Bashir. akhbaartaas oo akhbaar ay dadweynaheenu aad ugu baahan yihiin inay maqlaan qof cilmiga caafimaadka bartay sidaadoo kale ah. haddii aan u gudubno su-aasheena saddexaad oo ah
sida aan la wada socono talaalkan wuxuu bilowday wadankan aan ku noolnahay Mareykanka bishii 12aad ee December ee sanadkii hore 2020 wax ma nooga sheegi kartaa meesha uu hadda marayo waxaan ognahay markii kow la bilaabay in shaqaalaha dadka caafimaadka lagu bilaabay kadibna la yiri wuxuu leeyahay phases kala duwan 1 2 3 maxaa nooga sheegi kartaa meelaha uu marayo yaa qaadan karo maxaa la yiraahdaa xageen laga qaataa so talaal ahaan qof walba uu qaadan karaa laakiin maadaama markii numberkii la soo sameeyay marka hore shirkadaha ay soo saareen oo waaxda caafimaadka iyo ay soo gudbiyeen laamaha caafimaadka ee gobolada way yareyd marka dadka dhan maysan wada heli karin marka waxaa la go'aamiyey in la siiyo dadka halistoodu ay fara badan tahay ha ahaadaan qolyaha isbitaalada ka shaqeeyo kuwaasaa lagu bilaabay koodii hore hadda waa laga soo gudbiyey facekaas oo inta badan dadka isbitaalka shaqeynayay ama kalkaaliyaal ama shaqaale isbitaal ama dhakhaatiir ama waxay rabaan ha ahaadaan way wada qaateen intooda badan waxa loo soo gudbiyey waxay tahay haddana dadka halistooda ay badan tahay waa dadka 65 iyo wixii ka weyn ay tahay waxaa la filayaa bishan soo socoto ilaa bisha kale in numberku uu sii ziyaado oo aad u sii bato hadda maxaan kuu sheegaa waxaa la bilaabay 65 aan kuu sheegayay vaccine-ka dowladda ay soo qaybinayso oo waaxaha caafimaadka ama institutionada ay soo gaarsiinaysana wuu fara batay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa bishan hadda bilaaban doonto bisha afraad bisha saddexaad iyo bisha afraad bisha labaad bisha saddexaad bisha afraad ugu dambeyn in dadka oo idin u wada gaaro oo dadka dhan ay ka wada faa'iideystaan waxaan idaacadaha ka aragnaa TV-yada ka aragnaa leemanna dheer dad ugu jiro dad waaweyn oo da' oo 65 ka waaweyn oo da' oo leemanna dheer ku jiro sugayo inay talaalka helaan oo qabowgan u taagan inay talaalka helaan meelaha laga qaadan karo hadda haddaan tusaale usoo qaato waa arrin aad muhiim u ah markii hore dadka caafimaadka ka shaqeeya meelahay joogaan way ogaayeen sida loo qaatay sida loo helo hadda waxaa la bilaabay marka hore waxa lagu qaadanaya hadda magaaladan degan oo kale Sinclair oo kale waxa lagu qaadanaya isbitaalka weyn waa la balaariyay hadda waxaa laga dhigay maxaan ku sheegaa meel kale oo santa oo plaza ku taalo kala lagu daray mar dhow waxaa la filayaa in clinic walba uu ka qayb qaadan doono oo magaalada ku yaalo ama xataa in la gaarsiin doono in farmasiyaasha ay bixiyaan talaalka laakiin ilaa hadda waxa la hubo ma ahan oo istiraatiijiyadii sidii loo qaybin lahaa sidii baa lagu jiraa dadka waaweyn oo 65 iyo ka badan tahay daadooda marka hore my chart waxa la dhahaa message lagu soo diri jiray gadaal waxaa laga ogaaday in dad badan community ka mid ah aysan my chart lahayn ama si loo isticmaalo aysan garanaynin marka insha Allah mar dhow waxay bilaabayaan in dadka la soo waco oo telefoon laga soo waco insha Allah haddii la yiraahdo dalaalo badan oo la wada jirto oo maxaan ku sheegaa at the same time dadka vaccine gacanta ku hayo laga dhacsiinayo in dad badan community ka mid ah aysan haysanin electronic service ama aysan haysanin internet aysan haysanin ama aysan isticmaalin ba ama aqoon u lahayn oo kale marka insha Allah mar dhow wicitaan iyo telefoon ay bilaabayaan haddii la yiraahdo insha Allah aad iyo aad u mahadsan tahay Dr. Bashir caqabadaha tirada badan ee dadkeenan aan luqadda garanaynin kombiyuutarada haysanin ay maalin walba maxaa la yiraahdaa ka hor istaagaya in la talaalo aad iyo aad u mahadsan tahay inaan maxaa la yiraahdaa aad ka warhayso oo aadna ka caawinayso sidii dadkeenu dhibaatada uga bixi lahaayeen haddaan u gudbo su-aasheena caawa ugu dambayso maxaad kula talinaysaa dadweynaha ku daawanaya caawa waa su'aal aad muhiim u ah aad baan ugu faraxsan inaad weydiisid tala ahaan waxaan soo jeedinayaa ummaddeena Soomaaliyeed communitygeena khaasatan dadka nasiibka u yeeshay in ay heli karaan talaalkii dadkeena waaweyn halista ugu jiro cudurka inuu hadduu ku dhaco dhibaato culus u geysto ilaahay kama dhige waxaan kula talinayaa mar allaale markay jaanis ay u helaan mar allaale markii la soo waco oo lagu maanta waxa soo gaaray leenkaagii inuu qofku talaalka u qaato aniga inala hadlayo waan qaatay talaalka labadiisa qayb waan qaatay alxamdulillah wax dhibaato kale ma kulmin inta aan soo sheegan keeno gacanta in waxay xanuunto qofka cirbada lagu duray oo kala aan ahayn dhalinyaro badan oo dhakhaatiir ah ama waaxda caafimaad ka shaqeyso qaatay way jiraan oo Soomaali ah oo luqadii ku hadlayso ayagana sidoo kale ilaa hadda qof aan aqaano oo dhahi karo maxaan ku sheegaa hebel baa cudur talaalka la xanuunsaday ma jiro ilaa hadda talaalka 95% inuu effective yahay wax ku ool yahay waxa la hubo weeyaan
talaalka hala qaato waxaa maqalnaa waxyaabo badan oo community dhexdeeda ku jira oo ah talaalka waxa waaye wuxuu saameeyaa dhalmaduu saameeyaa oo kale dadka dhalmaduu ka hor istaagaa wax caafimaad ku salaysan ama study ku salaysan oo la hayo ilaa hadda ma jiraan qof walba aad TV ka aragteen ama ha ahaado madaxweyne ku xigeen ama madaxweyne ha ahaado ama senator ha ahaado ama qofka ha ahaado ka tirsan dowladda dhexe ama dowladda gobol ka tirsan oo talaalka qaadanayo waxay qaadanayaan waa talaalka rasmi ah ma ahan inuu biyo yahay ama wax kale uu yahay oo anaga loo tijaabinayo ma ahan kama koobna talaalku kuma jiraan wax microchip la dhaho oo ah maxaan kuu sheegay dadka qaar inay aaminsan yihiin meesha ay joogaan iyo waxa ay la socdaan in lala soconayo maxaan kuu sheegay kale waxaan maqalnaa marar qaar dadka qaar oo sheegayo in talaalka uu ku jiro doofaar iyo waxaasoo kale laamo badanoo waxaa jiro islaam ah oo hay-ada islaam ah oo fatwooyin soo saaro kulligood waxay iftoodeen in talaalka laga bixiyo waddankeena maraykanka inuu joogno inuusan ku jirin wax doofaar ah inuu xalaal yahay oo la qaadan karo markii la isku geeyey waxaasoo idil waxaan kula talinayaa qof walba oo Soomaaliya oo message-kay u gaaro especially dadkeena waaweyn waddankan joogo in talaalka ay qaataan hadduu aleedmo insha Allah mar alla markay jaanis u helaan aad iyo aad u mahadsan tahay Dr. Bashiir waqtiga aad caawa dadka ummadaada aad siisay daawadayaal aad iyo aad u mahadsan tihiin maxaa la yiraahdaa waqtiga aad siiseen barnaamijka nala qaadateen السلام عليكم.